بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا كريبتو walaaliheen crypto currency Somali crypto currency groupka ku jira aad baan idin salaamay insha Allah maanta waxaan jeclahay inaan xoogaa dhowr meelood taabto oo ku saabsan waxyaalihii hore aynu hore u baranay iyo waxyaalihii hore maaragtay aynu ka sheekeyn jirnay ee ku saabsan crypto currency-ga iyo aanu dib ugu yara noqono coin market cap-ka iyo xaaladihiisii iyo meelahay marayaan iyo coinankii cusbaya soo baxay iyo kuwii qadiimka ah ee berigii hore Binance-na waa jecel inaan ka yara sheekeyno xoogaa insha Allah maanta oo fikradin ka siiyo Binance say u shaqeyso iyo qaabkeeda iyo sida loo sameeyo trading-ka iyo sida loo baaro coinanka fiican insha Allah tacaala marka oo soo noqon doonaa Binance laakiin hadda waxaan ka bilaabanaa insha Allah tacaala coin market cap ka bilaabana insha Allah hore cashar badan waa bixinay oo ku saabsan coin market cap-ka beriyahan waa aragtaan suuqu waa digay oo yani si qeyr caadi u digay laakiin hadda waad aragtaa inuu greenkii baa soo batay maasha Allah waa soo wada kacayaan halkaas ka aragtaan markaynu maanta eegno market cap-kiinu waa 131 billion oo dollars oo soo galay cryptocurrency lacagtaas way gashay suuqii marketku beri dhowto markaynu ka sheekeynay 10 kun buu marayay 10 kun oo market maanta wuxuu marayaa 16 kun oo market waa batay cryptodii waa soo badatay afwan waxay maraysaa 2 kun waa dhaaftay marka weli bitcoin-kii baa moogtay dominance isagaa weli wataa isagaa leaderka ah meesha 54% buu marayaa inta kale waxaa loo qaybinayaa 2073 haddaynu eegno coinanka cusub ee soo galay marketka maanta waxaa soo galay 2 coin baa soo galay halkaasaad ku ogaanaysaa waxay ku soo galeen lama oga ilaahay baa og pricekiisu waxay ku soo galeen wax yar kan waaba fiican yahay dollar buu ku soo galay ka labaadna wuxuu ku soo galay $7 iyo xoogaa inta kale waa aragtaa 0 point something marka suuqa soo gelitaankiisu wax fudud maaha wuxuu u baahan yahay coinka in laga shaqeeyo in la maalgeliyo oo maaragtay waxyaalo badan buu u baahan yahay iska soo gal maaha suuqa haddaynu maanta eegno gainers dadka wax fiican ka helay coinka la yirahdo ERC20 waa ma ogeyn bata ERC20 waa bahashi Ethereum blockchain-keedu waxaa loo sameeyay coin cajiib weey caadi maaha wallahi dadkii ICO-ga galay ICO-yada qofka galay waa ka faa'iidaystay wuxuu kordhay 181% buu galay waa aniga lafteedu waa la yaabsanahay ma aan socon ERC20 ma soconba kuwa kale oo maaragtay bardo markaad eegtid data wallet ka laftiisu xoogaa si fiican buu lacagaystay kuwa gainerska oo kuwa moogtahay wax ka helay losers waa jiraan oo dad ku khasaaray meesha iyaga laftoodu marka haddaynu eegno okay market cap-kaynu ku noqonaynaa mar dambe coinankiina waa kuwa coinka marka aad eegaysid aad gelisid coin ama aad iibsanaysid ama matalan company coin sameynaya marka rabtid inaad wax la qaybsatid waxyaalo badan baad u baahantahay inaad yani iska ilaalisid waxyaalo fara badan مثلا example baynu qaadanaynaa dadka galay coinka Ripple oo kale مثلا ama kuwan ka hooseeya Ripple oo kale for example hadaynu eegno ratekiisii maanta uu maraya 0.37 beri dhaweyto beri dhexdaas ma fogeen dhowr bilood ka hor bay ahayd wuxuu marayay $3 dad baa iibsaday isagoo $3 anu mar waxaan iibsaday mar isagoo $2 mar isagoo $1 ah laakiin weli waan hayaa aad uguma sameyn trading laano waxaa dhici karta inuu marun buudo maaragtay ka tago marka supply-giisu supply caadi ma aha maximum-kiisu waxa weeye waa number weyn waad aragtaa market cap-kiisu ma yara waa 15 billion miya 15 billion waa number yar maaha volume-kiisu maantadan in the last 24 hours waxaa lagu kala iibsaday $1 billion baa lagu kala iibsaday Ripple
macnaha si fiican buu u shaqeynayaa. chartkiisii waka markaad eegtid marketka wuxuu soo galay 2013 waa generationkii ka dambeeyey bitcoin. august buu soo galay, wuxuu kusoo galay 0.004. dadkii ICO-ga qaatay berigaas aad bay uga lacageysteen. waa markuu gaadhay alqima topka markuu gaadhay waxay ahayd waa aragtaa wuxuu gaadhay $3. wallahi amazing buu wuxuuna kusoo galay 0.005 wax caadi ma maantana wuu soo degay, laakiin wuu soo noqonaya crypto wuu soo noqon doonaa. waxa weeye duruufaha jira cryptoga kalifay inay hoos u daadegto, duruufo badan baa jira. saa ogtihiin waxaa kamid ah ETF-ka la sugayaa wax moogtahay decision laga gaadho. ETF-ka haddii maaragtay approval la sameeyo oo meelihii dee laga baqayay meelihii lalahaa ku saabsan cryptocurrency-ga haddii la habeeyo la yiraahdo khalaas diyaar baa loo yahay, waxaan u malaynayaa markaasi tagay boodayaan kulligood oo hal crypto oo de qaar uma baqtay laakiin kuwa fiican ee lahayo waa boodayaan. طيب website-ka Ripple haddaynu yara galno yara taataaban xoogaa. website-kiisu waa website aad looga shaqeeyay, developer fiican bay leeyihiin, team aad u fiican bay leeyihiin, CEO-gu waa nin aad loo yaqaan weeye. anigu casharkan maanta waxaan ugu talagalay teamkeena cryptocurrency-ga dadka walaalaheen ku jira trading-ka ama fahansan bahasha uguma talagelin macnaha dee qof aan crypto waxba ka aqoon. qofka aan waxba ka aqoon crypto inuu fahmo wuxuu baahan looga bilaabo ABC, laakiin kan waxaan ugu talagalay walaalaheen. laakiin laa maanic qof ku jira cryptocurrency iyo ama meelo kale ku jira ama any coin ku jira oo xataa aan marketka iman walaalaheen gruubada kale waa lagu tuuri karaa videogan. qofkii raba inuu ku tuuro waa ku tuuri karaa any group. ugumana talagelin groupkan si maaragtay loo yiraahdo war ninkii Axmed maanta dad buu rabaa inuu business soo geliyo. waxaan business ma aha, anu kalmadi waxaan waa suuq. marka ayaa la isku qaldamin bahashan. macnaa dadku waxay ku qaldaan qof baa program sameeyey maanta oo ka hadlay, qofkaas wuxuu doonayaa inuu dad ugu yeedho oo networker oo waxbuu sameynaya. anigu ma ihi, anigu networker ma ihi, nafteedan ka hadlaya. network marketing in yar baan ku jiray, in yar bay ahayd, marka waan joojiyey, beri horaan joojiyey. laakiin hadda dadka walaalaheen waan bana sharaxaa suuqyadu say u kala duwan yihiin, sida lacagta loo kala faa'iidaysto. advice baan bixinaa sometimes si dadku maaragtay uga faa'iidaysan lahayn suuqa. marka Ripple-kan maanta aan ka hadlayo ma aha wax maaragtay laleeyahay war hebel soo galo commission baa jira. kan waxa weeye waa cashar dadku ay ka faa'iidaystaan qofkii raba inuu fikrad ka qaato. marka website-koodu waa aragtaa xoogaa suuradda aan soo yara dejinay. waxba ma qarsoona halkaa. okay waad geli kartaa website-kiisa. benefitkiisa wuxuu ku fiican yahay Ripple. wuxuu ku leeyahay transactionkiisu waa 4 second. Ethereum wuxuu u sameeyey comparison Ethereum iyo isheg Ethereum iyo Bitcoin iyo Ripple. wuxuu yiri transactionku wuxuu noqonayaa 4 second marka payment marka diraysid. Ethereum waa 2 minute weeye, taa anaba tijaabiyey. Bitcoin wuxuu qaadanayaa saacad iyo dheeraad, taasuna waa sax. wallahi waa very quick. waxaa jira la yiraahdo scalability. wuxuu ku leeyahay inta transaction oo maaragtay uu second-ka u diri karo waa wax aan caadi ahayn weeye. more details waa geli karnaa, ka sheekeyn karnaa insha allah. distributed adduunka hadda waad aragtaa meel kasta inuu galay. waa open source technology weeye. Ripple coin waa stable. 5 years buu yiri track record weeye, stable technology. marka waxaa loo malaynayaa in uu maaragtay intaan point-ka gaadhin price-kiisu maanta halkaasuu maraya $0.3. wax jaban yahay maanta, laakiin waxaa loo malaynayaa inuu centralize kusoo dhow yahay sida la muuqata. inuu bangiyo maaragtay bangiyo fara badan, bangiyada adduunka oo dhan baa raba inay Ripple يعني la tacaamulaan. hadda matalan imaaraadka oo kale shalayto reportkii ugu dambeeyey waxaan maqlay bangiyo badan oo imaaraadka ayaa raba inay Ripple maaragtay la xidhiidhaan oo la tacaamulaan. bangiyo kale oo Yurub ka mid ah Ripple aad baa looga sheekeeyay xataa America. marka xaqiiqatan coin fiican weeye. kan waa an example weeye Ripple uma ka hadlayaa maanta. laakiin haddaad eegtid waxaa jira coinan kale fara badan oo aad u fiican. yani ilaa intan ugu horeysa oo dhan
kuwa jiraan ribble ka yarayn hawshooda ay caadi ahayn yani hawshoodu ay aada u fiican tahay waa fara badan yihiin maxaan kaloo ilaaway inaan soo gaabiyan rabaa coin market capka si aan ugu wareego Binance ugu yara sheekeeyo xoogaa marka maanta ratekii bitcoin wuu kacay maanta wuxuu gaadhay pricekiisu wuxuu gaadhay waxaa fiican inaynu dhinaca Binance ka egna fiican Binance baa si accurate ah oo daqiiq ah kan xoogaa waa yara difference weeye marka welcome and Binance waa maxay waxa weeye waa exchange-yada adduunka ugu fiican ee ugu macaan ee xaqiiqatan lacag laga samayn karo ee dadku aada uga faa'iidaysan karaan waana very simple waxa weeye kusoo deji mobilkaaga kusoo deji apps baad kusoo dejinaysaa adoo online aad ku jirtaa waad baaran kartaa anytime hadda anugu waa ka hadlayaa meesha tan laakiin at the same time transactionan sameeyey live hadda waa ku jiraa live lafteeda amazing Binance hadda intii yarada fadhinay dhowr transaction baan ka sameeyey waa arki kartaan halka haddaad ka eegtid war dhoweyto trading history taariikhdaas eeg halkaas ka arki kartaa waa iminkadan wey 11:53 taabku wuu socdaa haddan ku sameeyey transaction fiican ku sameeyey oo history ah amazing way marka waa markaad suuqan soo gashid waa inaad noqotaa always inaad noqotaa standby mobilka ku dejinaysaa apple maartay computerka ku dejinaysaa laptopkaaga waxa weeye markaad dee dhowr coin isku wadid matalan halkan ripple baad ka iibisay waad la socotaa halkan maaragtay ethereum baad ka wadaa halkan bitcoin baad ka wadaa this is the market exchange adduunka ugu weyn bay ku jiraa iminka marka haddaad saa u eegtid waka kan ba accurate hadda wuxuu marayaa bitcoinkii 4000 ayuu kusoo digay wadaad aragta halkaa suuqyada lagu kala bedesho waxaa ka mid ah USD mid la yirahdo USDT baan u naqaanaa kan baa minka ugu caansan laakiin way jiraan kuwo kale TUSD mid la yirahdo iyo BAX mid la yirahdo way jiraan Ethereum market buu leeyahay gooni oo waxaana coin oo dhan Ethereum baad ku kala iibsan kartaa Bitcoin marketka ugu weyn waad aragtaa say tahay kaas haddaynu maanta dhan wadnama dhammaanay BNB market BNB-na waa coin oo iska leeyahay Binance baa iskale sida lagu tacaamulaa marka USDT waa badanka lagu kala bedeshaa laakiin Satoshi-gaad eegan kartaa Satoshi-guna waa maxay Satoshi-gu waa jajabka Bitcoin-ka hadda matalan dollarka oo kale waxu naqaanaa dollar waxaa ka hooseeya sentiyada 1 cent boqolkii senti waa $1 Satoshi-guna intay ahayd 1 million may ahayd 100,000 abalusanayna 100,000 Satoshi ma 1 Bitcoin bay ahayd mise 1 million Satoshi 1 Bitcoin bay ahayd adigu Google-ka laga baari karaa ku jirtaa marka haddaan exchange ka eegno waxaa u baahanta oo dhan waad kala bedelan kartaa USDT Bitcoin baad bedelan kartaa matalan waad keentay halka ama waxaad doran kartaa buy ama sell rategaad gashanaysaa suuqu waa ordaya waa aragtaan greenku waa buy oo dadka iibsanaya casaankuna waa dadka iibinaya buy and sell waa demand and supply rabitaan iyo isticmaal saasaa moogtay coinku ku kacaa ama ku degaa marka ay macnaa shacabkii kale wixii de iibinayo oo gadayo suuqu waa maasha allah yani waa maya marka Binance waa tan xoogaa iga raali ahaada 1 second okay marka aad eegtid historygaaga open history baad eegtay open order ma haysto orderda dhan waan xidhay trade historygaan eegay haddaan rabo inaan eego one day maanta oo kale matalan waa kaas maanta oo kale waa iminkayna ku jirnay saacad oo telefoonka waa inusay wakaa iminka markii dhowto wakaa 12 of December 20 of December waa 12 ku dhowna iminka saacaddan halka waa aragtaan ka eega waqtigu waa isku mid ma aragtaa kaasa ka aragtaa straight away haddaad eegtid week ago waa ka alaabta la kala iibinayay
haddaa egtid bil ka hor, haddaa egtid 3 bilood ka hor, the last 3 months dee wataa iwad every day daily trading taariikhda la soco 18 17 16 computerkani ma nasto 16 14 13 la soco ma dhammaanayo ogow midna ogow marka aad market cryptocurrency marketka fahantid ani waxaan waa mustaqbalkii weye mustaqbalku waxaan waa isbedelayaan lacagahan kashka maanta la isticmaalo waxa waa laga tegaya marka educationka qofka baashan yaqaana ee barta waa qof maaragtay yani xaqiiqatan aada u faa'iidaystay weye marka waxaan wax la barto waa very important weye dadka walaalaheen dee groupka inagula jireen waxaan jeclahay dadkii kusoo biray groupka ee ka faa'iidaystay inay educationkooda sii wataan waxbarashadooda sii wataan anu waxaan oran lahaa ilmahaaga bar xitaa ilmahaaga bar suuqan sida loo kala faa'iidaysto waxaanina ma aha mid ogaada waxani kuma saabsanaa network marketing kuma saabsana dadku ummaddu labay u kala baxday dadna waa network karo oo businessiyay raadinayaan ay network ku keenaan oo bonus ku helaan oo crypto ku helaan oo waxaa ku helaan dadna waa dad suuqa ka shaqaysanaya oo iyagu lacagtooda ku shaqeynaya anigu noocaasanahay nooca lacagta ku shaqaysta Binance waad ka samayn kartaa lacag fiican waadna ku khasaari kartaa waa business end of the day waxaan waa business weeye lacag fiican waad gashan kartaa waad keeni kartaa hadduu suuqa kuu kaco kuu hagaago macnaha aad asset fiican sii dhigatay waa okay weye waa dhici karta inaad ku khasaartay anigu intention baan ku khasaaray waxaan garanayaa dhowr kun waan ku khasaaray lacag badan maga baxday lacagana waan ka helay subxaan allah marka businesska dhan bacaynkaas business way khasaara marka waa sidaan idin sheegay casharadani waxay ku fiican yihiin macnaha qofka cusubna way u fiican tahay ee u bilooban yahay maaragtay Binance halkan waad ka arki kartaa qaabka tradingka loo sameeyo waxaad ka gelaysaa exchange way kala duwan yihiin dadna waxay kusoo dejistaan mobilka appskiisa dadna computerka caadiga website-ka mathalan for example haddaan soo degno in yar kan waa apps aan kusoo dejiyey ii sheega apple computerkiisa laakiin haddaan imika eego Binance waka website-kii website-ku waka wuu ka duwan yahay dariiqadiisu ka appska computerka lagu soo dejiyay baa ka cajiib ah waa very clear oo waadax oo maanta color iyo alwaan wax kasta waa leeyahay laakiin kan imika haddaad eegtid waa aragtaa exchange baan galay mathalan basic exchange baan galay weli login ma samaynayo uma baahni bas laakiin suuqa waa bogsayaa eeg say u kala duwan yihiin daawo buy sell priceka intuu marayo wakaa haddaa rabtid 100% haddaa rabtid 50% 50% 25 75 greenkii wakaa qofka wax iibsanaya casaankii wakaa qofka iibinaya marka appska aada uga macaan uga fiican suuqyadii waa kuwan kuu sheegayay USDT wakaa Ethereumkii wakaa Bitcoinkii wakaa BNB-gii wakaa marka way kala duwan yihiin waxaa muhiim ah intaana dhammayn haddaa rabtid inaad xitaa exchange-ka aad mathalan aad cryptoga kuu balowmay ama aad taqaanid mathalan ama aad trading samaynaysid aad ku shirtid mathalan exchange kale mathalan sida kuwan Kraken oo kale iyo Bittrex ama Bolinex Benefix kulligood isku fikrad bay yihiin laakiin haddaad doonaysid inaad Binance soo gashid weligaa waxaad qaadataa referral qof referral ka qaado haddaad doonaysid Binance inaad gashid weligaa referral qaado wax ka soo gelin anywhere laanna waxaa jirta website URL badan baa jira oo dadka moogtahay lagu dhici karo lagu khiyaamayn karo haddaa rabto linkiga ka geli kartaa videoga hoostiisan kusoo qoraya linkiga waad ka geli kartaa iska diiwaan geli waa free weeye free of charge sin lagaa qaadan maayo waad gelin kartaa adaa lacagtaada gashanaya cidna waxba kama rabtid cidna waxba kaa qaadan mayso you are free baad end of the day waadna baran kartaa youtube-kana aad uga daawo videoyo badan baa jira oo casharadan ka sheekeynaya Binance anu maanta waxaan Binance ka sheekay waxa maaha waa nothing waa 1% weeye laakiin aniga lafteeda youtube-kan aad uga bartay waa aad u gal insha allah waan soo gabagabeynayaa bismida ilaawin channelka laftiisa aan sameeyey youtube-ka برنامج badan baan ka sameeyaa oo ku saabsan dhinaca maaragtay cryptocurrency-ga ama dhinaca caafimaadka iyo maaragtay cudurrada iyo waxyaalaha taa lafteeda waan sameeyaa videoyo marka insha allah ilaawin inaad ku samaysatid subscribe-kaaga channelkan waa channelkaagii weeye channel Soomaali weeye subscribe-ka iska ilaawin
iyo share garee like-na ku taabo yalla marka insha allah waa idin salaamay waxaan idhi subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaha anta nastaghfiruka wanatuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.